السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ardayda sharafta leh soo dhawaada farxad weyn ayay tahay mar kale aan ka soo hormuqdo inkastoo aan waqti dheer aan maqnaa laakiin hadeertaan insha Allah casharada isdaba joog ayay noqon doonaan hadba leedno okay that's good waxaan rajaynayaa arday badan inta aan maqnaa inagu soo biirtay ay jirto kanaalkan luqadda Ingiriisiga barashadeeda ayaan ku soo gudbiyaa insha Allah haddana casharadu isdaba joog ayay noqon doonaan nala soco muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago soddon jumlo oo inaga caawinayo ku hadalka luqadda Ingiriisiga ah nolol maalmeedkeennana aan adeegsan karno hadba leedno okay that's good jumlada ugu horeyso how is it going isku day marka inaad iga daba dhigi karto dhawaaq ahaan macnaheedana insha Allah la soco okay how is it going jumladaas waxaad adeegsan kartaa marka qof aad weydiinayso oo kale xaaladiisa badanaa dadku waxay aad u adeegsadaan how are you doing and it is boring yani jumlo muxuu ahaa badanaa dadka adeegsadaan laakiin waxaa fiican inaad isticmaasho jumlooyin kale oo ka duwan so haddaad tiraahdo how is it going waa jumlo wanaagsan okay qofka waxaad weydiinaysaa xaaladaada ka waran okay how is it going jumlada labaad oo adeegsan kartid long time no see jumladaas oo kale waxaad adeegsan kartaa qof markaad in muddo ah inaan is arag oo mar hore isku kii dambeysay waxaad dhigi kartaa hey long time no see okay waqti dheer minan is arkin long time no see that's good jumlada saddexaad aad adeegsan kartid waxaad dhigi kartaa what have you been up to so jumladaas oo kale waxaad adeegsan kartaa markaad sidoo kale qof mar hore isku kii dambeysay xaaladaadu siday ahayd what have you been up to xaaladaadu siday ahayd sidoo kale jumlo wanaagsan waa isticmaali kartid jumlada afraad oo adeegsan kartid can't complain jumladaas oo kale waxaad adeegsan kartaa marka aad leedahay yani everything is okay yani wax aad ka cabasho ma jirto can't complain waa jumlo wanaagsan sidoo kale adeegsan karto jumlada shanaad oo adeegsan kartid waxaad dhigi kartaa how do you know jumladaas oo kale waxaad adeegsan kartaa marka qof uu wax qofkaas aadan ogeyn uu kuu sheego oo kale si yani surprise kaaga dhigo yani wax qofkaas inaan isla ogeyn oo kale wixii ka maqashay soo wax sheega so you say how do you know sidee ku ogaatay sidee ku ogaatay so jumlo kale wanaagsan waaye adeegso jumlada kale adeegsan karta waxaad dhigi kartaa that is a good one Soomaalida badanaa th way dhibtaa so when you say that th okay that man you say that is a good one qofka tusaalahan oo kale uu kula kaftamay ama joke oo kale uu kugu soo tuuray so you say that is a good one taasi waa mid wanaagsan jumlada kale adeegsan karta waxaad dhigi kartaa it is very kind of you taasi waa naxariistaada tusaalahaan kale qof baa ku caawiyey so you can say it's very kind of you yani caawinadaas ay caawisay waa naxariis xaggaaga ka timid it's very kind of you jumlada kale adeegsan kartid wanaagsan waxaad dhigi kartaa no worries walwalka iska dhaaf okay tusaalahaan kale qof ayaa qalad sameeyey so qofkii waxaa aragtay inuu isxumaynayo kale soo say hey no worries okay so jumlo kale wanaagsan waaye waa adeegsan kartid jumlada kale adeegsan kartid waxaad dhigi kartaa what is going on tusaalahaan oo kale meel ay imaatay dad waxaa aragtay yani wax aadan ku farxayn oo kale sameynaya ama carruurta oo kale xaafadda waxaa aragtay wax isku dhex qasan hey what's going on maxaa dhacayo maxaa sameynaysaan what is going on so jumlo kale wanaagsan waaye adeegso jumlada kale wanaagsan oo isticmaali karta waxaad dhigi kartaa pardon please salaan kale qof ayaa hadlay ama wax buu ku sheegay wixii
maada maqal way ku dhaafeen. So you say hey please pardon. ama waxaad dhihi kartaa pardon please, fadlan ku soo celi. Pardon please. So jumlo kale wanaagsan waaye waa adeegsan kartid. jumlada kale oo adeegsan kartid waxaad dhihi kartaa I didn't catch the last word, or I did not catch the last word. Okay, qof baa wax ku sheegay inta hore waad si fiican baad yani u dhageysanaysay waa fahantay, laakiin erey ugu dambeeya oo kale aadan fahmin. So you can say waxaad dhihi kartaa I did not catch the last word. Okay, erey ugu dambeeya si fiican ma u fahmin ama si fiican ma u maqal. I did not catch the last word. So jumlo wanaagsan waaye waa isticmaali kartid oo ku hadalka kaa caawinaysa. Okay, jumlada kula adeegsan kartid waxay tahay don't take it to heart. Don't take it to heart. Okay, so tusaalahan kale qof ayaad hadal ku tiri, hadalkii waxaa aragtay inuu isxumeeyo oo kale. So waxaa leedahay hey don't take it to heart, yani si dhaba ha u qaadanin, yani qalbigiisa kaa dhaawicin oo kale. Okay, don't take it to heart. Okay, so jumlo wanaagsan waa sidoo kale aad adeegsan kartid. jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa sorry I wasn't listening. Sorry I wasn't listening. Okay, salaan kale qof baa wax kuu sheegayay, so waxaa aragtay hadalkii dhan inuu ku dhaafay. So say waxaad dhihi kartaa sorry I wasn't listening. waa ka xumahay ma ku dhegaysanaynin, maybe you are busy, waa mashquulsanayd. Okay, so jumlo kale wanaagsan waaye waa isticmaali kartid. jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa it doesn't matter. It doesn't matter. Okay, tusaalahan kale qof baa wax sameeyey ama qalad uu sameeyey, ama tusaalahan kale meel fadhiday wax buu kugu daadiyay, dharku kaa wasaqaysay, oo waa ka xumaay, wax noocaas oo kale. So say waxaa leedahay it doesn't matter, wax weyn maahan. Okay, waxa wasaas maahan, it doesn't matter. jumlo kale wanaagsan waaye waa isticmaali karto. jumlada kale isticmaali karto wanaagsan ku hadalka kaa caawinaya waxaad dhihi kartaa things happen. Things happen, waxyaabuhu waa dhacaan. salaan oo kale qof waxaa aragtay aad u murugoonaayo oo saan ay u dhacdays oo you say, so you say yani ha ismurjinin, things happen, waxyaabuhu waa dhacaan. Okay, things happen. So jumlo kale wanaagsan waaye oo ku hadalka kaa caawinaya. Okay, that's good. jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa sorry to bother you. Sorry to bother you, waa ka xumahay inaan ku dhibo. Okay, so qofka waxaa excuse me, sorry to bother you. Okay, so qof aad aqoon waay markaas maybe waxbaa weydiin rabtaa, waxaad si tilmaama dhihi kartaa ama saacadda imise weeyaan dhihi kartaa. Okay, so you say sorry to bother you. waxaa isticmaalaysaa qof aad aqoonin. Okay, stranger, qof aad aqoon. So jumlo wanaagsan waay isticmaal. jumlada kale isticmaali karta waxaad dhihi kartaa I will be with you in a minute. I will be with you in a minute. daqiiqad gudaheeda aa kugu imaanayso. tusaalahaan kale qof aa ku dhahay ku yar ima ku dhahay wax kala qabanaysa. So waxa leedahay just wait me, I will be with you in a minute. daqiiqad gudaheeda aa kugu imaanaa. So jumlo wanaagsan waaye isticmaal. jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa where were we. Where were we, halkee maraynay. salaana kale ama waa sheekeynayseen ama shira ku jirteen, waxbaa inta kasoo dhexgalay oo kale. So waxaa rabtaa inaad hadalka sii wadaan. So waxaad dhehaysaa where were we. dhawaaqa muhiim waaye inaa iga daba dhexdid, very important. Where were we, halkee maraynay. So jumlo wanaagsan waaye adeegso. jumlada kale isticmaali karta waxaad dhihi kartaa lucky you. Lucky you, qof nasiib badan aad tahay. salaana kale qofkan inaa u hambaliyaysaa rabtaa, wax buu ku guulaystay, shaqo helay ama scholarship uu helay ama visa uu helay, anything. Okay, so you say lucky you, qof nasiib badan aad tahay. Lucky you, jumlo wanaagsan waaye. Okay, ereyga hadda isticmaalnay lucky you
oo aan dhahnay qof nasiib badan aad tahay marka qof aad u hambalyeynay sidoo kale erayo kale oo aad taqaanid oo aad isticmaashid haddii jiraan commentiga nogala wadaag jumlada kale aad isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa good for you good for you waa sidoo kale waxa weeyaan qof baa maybe wax fiican xalay oo kale ama wax yani sida hadda lucky for you oo kale waa good for you wax ku wanaagsan waa so ereygaas laba siyaabood loo isticmaali karaa si positive ah iyo si negative ah so qofka jumlada soo isticmaal ku xiran tahay qofka aad wax u sheegtay then good for you so qofka waxa ka dareemaysaa yani emotionskiisa dareenkiisa laakiin haduu ku dhahay good for you yani ana waxa ma iga gelin oo kale waa adeeg ku fiican tahay so labada dhinacba waa loo isticmaali karaa jumlo wanaagsan waa jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa you have got to be kidding me you have got to be kidding me qof baa ku maartay kula kaftamay oo kale ama wax aad filanaynin ku dhahay waxa leedahay waa igu ciyaaraysaa marka leedahay waxa leedahay you have got to be kidding me waa igu ciyaaraysaa ciyaartiga jooji okay you have got to be kidding me jumlo wanaagsan waa jumlada kale aad isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa come on you can do it come on you can do it jumladaas waxaa isticmaali kartaa marka aragto qof inaad dhiirigeliso qof waxaa aragtay inay jabsan so waxaa leedahay hey come on you can do it waa samayn kartaa ha isdhiibin come on you can do it okay qof dadaalaya oo kale aad aragtay shaqo fiican sameeyey waxaad dhihi kartaa keep up the good work keep up the good work dadaalka halkaas ka sii wad keep up the good work so jumlo wanaagsan waaye oo isticmaali kartid jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa there is no room for doubt there is no room for doubt erey ugu dambeeya bida waa silent se ugu dhawaaqsaa doubt okay qof baad wax u sheegtay qofkii wuxuu ku dhacay amal shaki ayaa ku jiro xalada there is no room for doubt wax shaki ah meeshan kuma jiro there is no room for doubt jumlo wanaagsan waaye waa isticmaali kartid jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa I will text you I will text you qof marka leedo kale qoraal ku soo qoriya waxaad dhihi kartaa I will text you qoraal baan ku soo qoriya okay jumlada kale isticmaali kartid halkan maanta ku baranayna waxaad dhihi kartaa pull up yourself pull up yourself okay jumladan kale sidoo kale waxaad isticmaali kartaa qof markaad dhiirigelinaysid aragsantaa yani qofkan in uu isdhiibay ama uu niyad jabsan yahay so waxaa leedahay pull up yourself kor isku soo qaad okay so jumlo wanaagsan waaye waa isticmaali kartid ku hadalka luqadda ka caawinayo jumlada kale isticmaali kartid waxaad dhihi kartaa can you cover me up can you cover me up salaano kale meel shaqa ka tagaysa qof baa waxa leedahay meesha inta sii maqanahay maartay easy joke can you cover me up okay meeshas ma easy joogi kartaa so jumlo wanaagsan waa isticmaali kartid jumlada ugu dambeysa oo muuqaal ku soo gabagabanayo oo adeegsan kartid waxa weeyaan take care is ilaali qof isma salaaminaysan ina kala tagtaan rabtaa kale wax soo xaleedahay hey take care is ilaali okay so muuqaalkaas jumlooyinkaas waa jumlooyin wanaagsan oo inaga caawinayo ku hadalka luqadda Ingiriisiga so insha Allah muuqaalka ku soo cesho haduu aaleedmo dhawaaqooda iyo macnahaba okay so had jira isticmaashid wada sheekaysi badan ayaa sameyn kartaa haddii ay jiraan ciwaano kale oo aad u xiiseynaysid oo aad rabtid inaan casharo ka soo sameeyo comment insha Allah nagula soo wadaag muuqaalkan hadaa wax ka faa'iiday oo aad ka heshay insha Allah like noo saar insha Allah si anagana dhiirigelin inagu noqoto muuqaalo badan aan soo sameeyno commentiga waxay ugu soo qortaa macallin welcome back again muuqaalka xiga inta ka kulmi doono khayr badan baan ku ogahay sidaas iyo nabadgelyo